بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن قلب وناكسن halkan waa wararka 24 saac kuna soo dhawaada wararka aan idinayno kuboodii ugu waaweyn ee aad daawan doontaan waxaa kamid ah xasan sheekh maxamuud oo shaaciyay khatarta ka soo socota deegaanada dowlad goboleedka galmudug afaan ka soo baxaysa xarunta isgaarsiinta al-shabaab oo la duqeeyay Kenya oo loo doortay hogaanka ilaalada xeebaha bariga Afrika xisbiga cadaaladda oo ka digay fargelin ciidamada Ethiopia ay ka wadaan gudaha Soomaaliya qaramada midoobay oo sheegtay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu xasiloon daro ka abuurayo deegaano ka tirsan gudaha Soomaaliya wararka dibadda ee aan idin heelana waxa ugu waaweyn madaxweyne Erdogan oo xaalad aad u xun ku qeexay madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron waxa daabateen qodobadii wararkeena ugu waaweyn haddii aad ku cusub tahay janaalkan subscribe si aad u hesho ogaha daahsoon ee halkan aan ku soo gudbino kuna soo dhawow warkeennii oo faahfaahsan waana 1 bisha 12 December 2019 madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u waramayay TV-ga Shabeelle ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arinta maamul sameynta maamulka Galmudug Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyn ka digay dhibaato hor leh oo ka dhalata ciidamada kala duwan ee ay dowladda Soomaaliya ku daabulayso gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud ee bartamaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay haddii aan si fiican loo marin arinta Galmudug ay dhici karto khatar xoog leh oo ka darantii koonfur galbeed sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wallahi Galmudug haddii aan si fiican loo marin khatar xoog leh oo tii koonfur galbeed ka daran ayaa ka soo socota ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo mar soo noqday madaxweynaha Soomaaliya dhinaca kale waxa uu madaxweynihii hore ee dalka ka hadlay khilaafka dowladda federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada kaasi oo saameeyay xiriirka labada dhinac Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed in aysan sidii la rabay u maamulin nidaamka federaalka oo uu dalku qaatay isla markaana dib u dhigay sida nidaamka federalismku ee dastuurka Soomaaliyeed uu qorayo ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen ee aan anigu ugu darnay in la dhaqan geliyo ee aan waxba ka bilownay ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan uu meel xumarayo khilaafka siyaasadeed oo u dhaxeeya maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya arinta ayaa si weyn u sii kacday kadib markii doorasho aan dowladda iyo beesha caalamka aqoonsaneen ay ka dhacday magaalada Kismaayo taa oo dib iskugu doortay madaxweynaha Jubbaland maamulada qaar markii laga soo tago waxa xiisada ugu badan u dhaxaysa Jubbaland iyo sidoo kale maamulka Puntland oo labada maamul inta badan ay ka soo horjeestaan siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saraakiil ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa sheegaya in la duqeeyay xarunta isgaarsiinta al-shabaab oo ku yaala degmada Jamaame iyo sidoo kale degmada Jilib ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo sidoo kale Jubbada Dhexe duqeynta oo isku mar dhacday ayaa la sheegay in la beegsaday laba fariisan oo muhiim u ahaa dagaalyahanada al-shabaab waxaana la soo sheegayaa inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac lehba saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in Jilib duqeyntii ka dhacday lagu baabiiyay goob al-shabaab u ahayd xarun isgaarsiin oo laga hogo weerarada dagaalyahanada al-shabaab ay ka fuliyaan koonfurta iyo bartamaha dalkan sidoo kale Jilib duqeynta ka dhacday ayay saraakiishu sheegeen in la beegsaday guryo la aaminsan yahay in uu degnaa mid ka mid ah saraakiisha sarsare al-shabaab lana hubo in weerarkaas gurigaasi uu ka dhacay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom loo soo gaabiyo ayaa sidoo kale shalay gelinkii dambe sheegay in duqeyn ay la beegsadeen xubno al-shabaab oo ku sugnaa degmada Jilib lama shaacin khasaaraha ka dhashay duqeynta Mareykanku ay sheegeen waxaana Africom ay sheegtay in weli ay qiimeynayaan
goobjoogayaal ayaa sidoo kale warbaahinta gudaha u sheegay in diyaarado dagaal ay duqeeyeen degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Dhexe duqeyntaas oo aan ilaa iyo hadda la soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale diyaarado dagaal duqeymo xoogan waxay uga geysteen deegaanada Jubbooyinka waxaana mararka qaar ka dhasha khasaarooyin iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo saraakiil muhiim u ah al-shabaab lagu dilay duqeymihii sanadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan koonfurta Soomaaliya waxaana duqeyn lagu dilay hogaamiyihii hore ee al-shabaab isla markaana ay duqeeyeen diyaarado daroonaysa dowladda Kenya ayaa mar kale dib loogu doortay hogaanka ururka caalamiga ah ee badaha kadib shir ka dhacay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska Kenya ayaa wakiil ka ah wadamada dhaca bariga Afrika sida Burundi iyo sidoo kale wadanka Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Rwanda, Somalia, South Africa, Sudan iyo sidoo kale wadamo kale waxaana loo doortay hogaanka ilaalada mid ka mid ah wasiirada dowladda Kenya oo ah wasiirka badda dalka Kenya oo ka hadashay dib doorashadan ayaa sheegtay in Kenya ay suurtagelayso guushani in ay ka qayb qaadan doonto go'aanka gaaridda arrimaha badda ee dhammaan dalalka caalamka sidoo kale waxay wasiiradu ku faantay in mar kale dib loogu doortay kuraaskaasi isla markaana ay maamulayso guud ahaanba ilaalada badda ku yaala bariga Afrika arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo haatan ay taagan tahay dacwad dhinaca badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya dacwadda oo in muddo ah taagan ayaa waxay haatan hortaalla maxkamadda ICJ oo la fulinayo in ay go'aan ka gaarto arrintan labada dal u dhaxaysa ee Soomaaliya iyo Kenya xisbiga cadaaladda iyo horumarka uu hogaamiyo Xasan Maxamed Xuseen Mungab ayaa ka digay faragelin uu sheegay in dowladda Ethiopia ay haatan ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay xisbiga ayaa lagu sheegay in Ethiopia ciidamadeedu aysan ka mid ahayn AMISOM ay ku daabulayso gobolka Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Gedo oo labadaba ka mid ah gobolada Soomaaliya sidoo kale xisbiga ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay ku tumanayso kuna xadgudbayso dastuurka iyo shuruucda kale ee dalkan u yaala xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa xusay in dowladda dana siyaasadeed ay u adeegsanayso ciidamada qaranka iyo kuwa Ethiopiaanka ah ee aan ka mid ahayn howlgalka nabad ilaalinta ee ururka midowga Afrika ee AMISOM hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dhaqaaqyo military laga dareemayo deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ay ugu weyn tahay magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka Gedo oo la sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku riixayso maamulka Jubbaland dhowr bilood kadib markii uu guuleystay biladda caalamiga ah ee Nobel Peace Prize ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa iska difaacaya eedeemo ku saabsan in uu faragelin ku hayo arrimaha dalalka deriska ah laba warbixin oo ay soo saareen guddiga khubirada ee qaramada midoobe ayaa Abiy ku eedeeyay in uu xasilooni daro ka abuurayo South Sudan iyo Soomaaliya oo ah laba dal oo arrimahooda gudaha aad ugu lug leeyahay sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya eedeysanahan ayaa imaanaya iyada oo madasha xisbiyada qaran iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ay ku eedeeyeen ciidamada Ethiopia in dowladda Farmaajo ay ka caawinayaan in fargelimo ay ka geysato deegaano ka tirsan gudaha dalka dhinacyadan ayaa sheegaya in Ethiopia ay ciidamo aan AMISOM ka tirsanayn ku soo daabulayso Soomaaliya si ay u fuliyaan xadgudubyo ka dhan ah bani'aadanimada iyadoona ay fulinayaan hadafka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safiirka Ethiopia ee waddanka Kenya
oo la hadlay Daily Nation ayaa sheegay in eedeymahan aysan xaqiiq ahayn. ciidamada Ethiopia ayaa bishii December ee sanadkii 2018 waxay iyagu ay weeliyaan ciidamada Soomaaliya iyo shacab ay ku xasuuqeen magaalada Baydhabo doorashadii Koonfur Galbeed oo la xaqiijinayo in uu ku soo baxayo musharaxii dowladdu ay wadatay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ka hor inta aan bishii Febraayo ee sanadkii 2007 loo dooran madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa uu ahaa siyaasi Soomaalida ee ka gaday in uu neceb yahay shisheeyaha gaar ahaan Ethiopia. waxa uu mar badan wareysiyo uu bixiyay ku sheegay in Ethiopia ay tahay cadowga koowaad ee Soomaaliya isla markaana aysan ahayn in marnaba ciidankoodu ay joogaan Soomaaliya. si kastaba markii xukunka uu qabtay kadib dhammaan mowqifyadii hore waa ay isbedeleen waxaana uu dowladda Ethiopia u gacan geliyay Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo ahaa halgamaa Soomaaliyeed. waxa uuna aqbalay joogitaanka ciidamada Ethiopia oo uu bilaabay in uu dano siyaasadeed u adeegsado kadib markii Ethiopia iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda wadahadallo kala duwan dhex maray. gabagabada ayaan joognay. Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga ayaa si adag u weeraray dhigiisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron kaasi oo uu ku tilmaamay mid la ildaran xanuunka dilaaga ah ee maskaxda gara. Erdogan ayaa Macron ugu baaqay in uu arko dhakhtar si ay wax looga qabto jirada maskaxeed kadib markii uu shalay Erdogan ka jawaab celinayay hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Faransiiska oo ku aadanaa kasii mid ahaanshaha Turkiga ee isbahaysiga NATO. madaxweyne Erdogan ayaa khudbadda uu ka jeediyay Jimcihii jaamacadda Marmara ee gudaha magaalada Istanbul ayuu si toos ah u weeraray madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron. hadalka madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu jawaab adag u noqonayaa hadalkii Khamiistii uu Macron ku eedeeyay isla markaana ku dhaliilay howlgalladii militariga Turkigu ay ka fuliyeen bishii la soo dhaafay waqooyi bari ee dalka Suuriya iyo sidoo kale soo jeedintii ku aadanayd in Turkiga laga saaro NATO. gudahaan warkeeni waa naga intaas. haddii aad ku cusub tahay janaalkeena subscribe dheh si aad u hesho xogaha nalkan kusoo gudbino. waana mahadsantihiin ee nabadgelyo.